السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير رمضان كريم دمان بميل والبات كسو جنتيهين رمضان كرمضان كيسا عمر الداري وعبادة صوبان الله إنه جارسيو لما صومالي دا مسلمين تأردن إن وحن هالكان إذن كل وداعا يا دوان وحن أرونيني لعق ير وأن هو تلقلني إن معمدي صوماليات نافذة هيد markaasi weysaneed gaari ay ku socoto walaalkeynii muqdisho inoo jooga inoo qaabilsan arrimaha gargaarka axmed aadan xaashi aan u dirnay soo bandhigay kadibna waxaan raadinaynay dad gargaara oo at least marka ugu yartahay gaari u iibiya ayaan raadinaynay so alxamdulilah dadka soomaaliyeed waa dadka aamina waa dadka jecel waa dad masaakiinta kaalmeeya waa dad iskaalmeeya markaad u baahan tahay adoo u baahnayn ama adoo u baahan qof soomaaliya kaama tegayo run ahaantii hase yeeshee alxamdulilah waxaan halkan uga mahad celinayaa walaashayna hodan iyo caasho oo jooga jarmalka oo kaalin wanaagsan ka qaatay sidoo kalena gabar kale oo waddankan maraykan joogta ma rabo inaan magaceedii koowaad aan sheego hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa ina maxamed maadaama ayada aysan ogoleyn in magaceedii halkan loogu dhawaaqo waxay joogtaa waddankan maraykanka ayadana kaalin ayay ka qaadatay maasha allah tabaarikallah gabdhaheena soomaaliyeed waa kuwo maaragtay qayb ka ah horumarka dadaalka gargaarka wax walba oo dalka soomaaliya loo qabanayo saddexdaasi gabdhood ayaa kaalin weyn ka qaatay oo maaragtay lacagta la diray maamadaasi aan ugu iibinay inay hesho gaarigaasi waxaa ka dambeeyey alla subxaanahu watacaala ka soke dadaal uu suubiyey walaalkeyni axmed aadan xaashi gabdhahaas hadda aan soo sheegay iyo weliba anigoo shaaciye ah iyo shaaciye t v oo barnaamijkii baahiyey waad ku mahadsantihiin daawashadiina gabadhaasna waa la gargaaray alxamdulilah waxay u baahan tahay gargaar kale hase yeeshee ooda sida ay u kala sareyso ayaa loo kala qaadaaye hadda waxaan raadinaynay wax harta at least ay ku socoto oo guriga ku xiga ay ku geli karto sababtaa markii hore may haysanin wax iyada maaragtay xataa guriga ku xiga ay ku gasho sababtoo ah waxay ku gurguurinaysay qaarka dambe alxamdulilah hadda maamadii way faraxsan tahay waxa maaragtay aan u iibinay gaariga waxaa la iibiyaa $150 ayaa la iibiyaa alxamdulilah gabdhahaasi kasoo diray lacagta waddanka jarmalka qofna waxa uu baxsaday $50 qofna waxa uu baxsaday $25 gabadhan maraykanka ku sugan waxay baxsatay $50 waxay isku yihiin $125 ayay isku yihiin gabar kale oo ayadana halkan ku sugan ayaa ayadana baxsatay oo aan doonayn inaan magaceedii halkan aan ku shaaciyo sababtoo ayadaan rabin marka 4 gabdhood oo soomaaliyeed 2na maraykan ay joogaan 2na maaragtay jarmalka ay joogaan ayaa ka qayb qaatay $150 sidaasi ayuu ku idlaaday waxaan u dirnay walaalkeynii axmedna maaragtay axmed waxaa ka baxaysa naftirkiisaba kaalin weyn ayuu ka qaatay sababtoo ah suuqii markuu aadayo bajaaj ayuu raacayaa go-an baag bajaaj ayuu raacaya cidna lacag ma weydiinin xooggiisa iyo lacagtiisuu ku kaalmeeyey naftirkiisaba sidoo kalena gaariga markii lasoo iibinayo waa lasoo qaadaya kira lagu soo qaadaa wuu keenay soo axmed naftirkiisaba howl aad u weyn ayuu qabtay lacag iyo maal ayuu iskugu daray maasha allah alxamdulilah waxaad ila daawataan muuqaalkii maamadii oo bahashii maxaa lahaa wiiljeerkii ama gaarigii lagu wareejiyey ayadoo faraxsan una mahad celinaysa qof walba oo kaalintiisa ka qaatay ama kaalin ka qaatay bal ila daawada bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la joogaa maamo faadumo waxaa ii soo dirsaday lacag
gabdho la yidhaahdo caasho iyo hodan oo jooga jarmalka iyo gabar maraykan joogto. waxaa wakiil u ahaa shaaciyena anigu wakiil iga soo dhigta anigoo ah axmed aadan. waxaan usoo gaday wiiljarkan ama bahalkan cuuryaamiinta ah. maamo faadumo aan la joogaa. waana bil barakaysan oo ramadaan. maanta farxadeeda lama soo koobi karo. ayaamihii hore qaarka dambe ku gurgurnaysay. bal maamo faadumo xaaladaada ka waran? waa fiicana walaal beela waa ku fiicana walaal beela ya joogayga caadi waa wallaahi maanta maalin iga farax badan oo al abuurta ma jirto waa leh ilaahay baa kheyr qabadada fadligii wadada ilaahay kheyr ha siiyo waa mahadsan yihiin 100% alxamdulilah waa kaasa waa ujeediin maasha allah say u faraxsan tahay xataa hadalka xataa ma karto farxad awgeed. alxamdulilah shalay deriska ma aadi karin, hase yeeshee maanta deriska ayay aadi kartaa. gaarigeeda intay qaadato ayay deriska aadaysaa. alxamdulilah 4 gabdhood oo soomaali ah ayaa annagana wakiishay. annagiina axmed ayaan wakiilanay. axmedna sidaa quruxda badan ayuu ugu wareejiyey qoftii. insha allah waxyaabo kalaa iska soo bixi doona. waxalala wixii soo baxana bulshayahay soomaaliyeed waan idinla wadaagi doonaa. idinkana kaalmadiina iyo kaalintiina ka qaata. waxaan waxa weeyaan waa wax adduun ah, waa laga tegayaa adduunka. hase yeeshee markaad wax baxsanaysid adduun iyo aakhir ayay ku anfacayaan. insha allah qof walbaba doonaya inuu wax baxsado ha ila soo xiriiro. insha allah waxaan ku hagaajinaynaa sida loogu talagalay ayaan u bixinaynaa insha allah. xasuus waxaa mudan 2 beri ka hor baydhabo, magaalada baydhabo waxaan siinay raashiin 3 qoys oo afur aan u sameynay. afur oo hal maalin ma ahan. waxaan u iibinay qoys kasta bur, bariis, sonkor, caleen, cusbo ayaan u iibinay. 3 qoys ayaan siinay oo u baahnaa. waxaana inoo wakiilatay gabar ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed. gabdhaha gargaarista ummadda soomaaliyeed waxay ka yihiin kaalinta koowaad, mar labaad kaalinta 3aad waaye. ayaga ayaa kaalin 1 ilaa iyo 3aad ku jira. cid ku haysatana ma lahan. so alxamdulilah ilaahaygii dumarkaasi soomaaliyeed nagu beeray ayaa mahaddaas iska leh. annagana mar walba waxaan nahay kuwa ku mahad celiya ku shukriya ilaahay subxaana wa tacaala iyo waxqabadka iyo kaalimahaasi dumarka soomaaliyeed ay noo geystaan. muuqaalkaasina waa soo bandhigi doonaa insha allah. marka insha allah haddaad rabtid inaad sadaqa baxsatid oo aad dad wax u qabatid insha allah nala soo wadaag. annagana sida maaragtay ugu habboon ayaan u wareejinaynaa. u gargaaridda ummadda waa goolkeynii. idinkana inaadna garab istaagtaan oo wixiina aad bixisaan guushiina weeyaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.